ها waxa weeyaan waxa aan u sheegayaa Soomaalida wadankii Soomaaliya joogta ee maanta nabadgelyada haysata ee caafimaadka haysata ee quruxda haysata ee wadankoodii iyo nabadda haysata maanta Yurub dhibaatooyinka yaala waad arkaysaan wad u jeedaan waxaas ma aha caano baraf weey Ilaahay baa samada ka keenay dad baa ku nool sida ay ku nool yihiin Ilaahay baa og annagu maanta Yurub baan joognaa dhibaatooyinka koobaad ee aan Yurub ku arkayna dad baalkaas kamid ah markaan u dhalinyarta Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa in ay wadankooda joogaan in ay diintooda haystaan in ay dalkooda aaminsanaadaan in ay isku duubni sameeyaan in ay waxa tahriibka leeyahay ay ka fogaadaan Nuruddin waxaan ku weydiinayaa nolosha Yurub ka waran adiga hadda waxa ku soo wantay Switzerland hadii aan kaaga warramo de maxaa baan kaaga warramiba ninka taa ku dhex nool ma nolol buu haystaaba waa waxa aad arkaysaan waxa weeyaan teeda labaad waa maxay وبرف وين هذا لبعض وحلا قصينا يا هو نلل قياسا والله la doonayo in ay kugu bargo'do waa wax aan loogu tala galin in aad ka dheregto teeda labaad dadkii Soomaaliya joogeen way ku tuhmayaan oo ninka Yurub buu joogaayo lacag buu hayaa ayaa la oranayaa wallahi baanay Soomaalideena halkan joogtaa cid lacag haysataa aan jirin ilaahum baa uga xaalkooda wala wada ooyaya wala wada cabaadaya marka saasan idin kula talinayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi